بنت حورك له قيبت الوضع وبرخد جبل الحسن بدي حاجي برخد حصوصتي أبوقي حسن فارح والكيس جبريل حران ولقي العنين اتوقع حولدنا حلاليستي حريف كاس وحلكا كوريجي كان حاج اسمي وضاني حرايستي انت كما قلنا يا الحبالي مسبة إلها كلوات شعيل حاصلة حبوشيدنا محراش با ولا اوغان دون السحر كونه inuu xariir noqdo mise inuu xafish ka raaco xunba weyna yiraahdeen waa laqdeen axmed siilaan iyo boqor ah way ku xumeeyeen sheekh xasan xeebtu ka qaaday xamaam qudhamay ku darin iyaguna may eedaha xun ka daayaan dadka haddii toodana ka xanaaqi doonaan muddo dheer ba xoolaha carafa iyaga xidhay xushmadii qasrigana qoys ka dhigtay xil kastana dusha ku xambaar xaqdaro kastana abuuray xadaaradii iyo ilbaxnimadii horena khasaaray nuux ismaaciil la qari xarfada suugaanta waa xarabeynta carabkayga waa ogteen xirfad kastana waan ku hana qaada guushahana sida yar aan ku gaadho waa haddaa xuska rabbi ku daro alxaliim arraxiim haddana waa aragtaan xamartaa ka socota axmaq kastana xisaabo ma ka dambeeya amxaartii sidii ka yeeleen tigrayga waa aragtaan axmed aabiya wuu ka baqday ku tilmaama xalay baan yaabay maantana waan xumadooday milixii cayshkii dadkiisku ahaa xilliganan joogno waa xuutiyiinii khaliijkii ee gintaalo eeraan iyo maraykan xeerkii bini'aadamnimada kaga baxay xagga kale markan ku noqdo wuxuu yarkii u rusuga yidhi isu duwanahay xashishada beeristeeda waan u xiisay xiisadihii iskuulkii aqoon la-aantu xusuustay xigmadda aflagaadhada baxilkaygaas ku haysanaya waa yaandarada xabeeb xoogaan yeeshay sidan ergadaydii xeerka islaamka iyo dhaqanka la ii ixtiraami waayey axkaamta garsoorkuna waa xaafadiin si xoog oo loogu hanjaba baadalka xal u raadiya xagga kale markan ku noqdo xayawaanka duurjoogta ahayd waxaa jiray xulufayntii dhirtana xabad maanta maka noola xawaaraadka lagu gaadho heerkaas waa mucjisa xaddiga aqoon la-aantaasba halkaana dhigtay ee tidhi suxuufiin baa cilmi baadhis wadda xillimay noqotay cimaamada faysal xilkusime laisweydiin xillimay noqotay aqoon la-aantu muxtaram aflagaado ma noqoto xataa hadday haween ku xadhaaftid diinta xoorka leh taas ma ku arki doontid wabilaahi towfiiq